بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرت شرفت قيمة يقايها له odayaasha dhaqanka culimo diinka wax karadka aqoon-yahanada ardayda qalin jabinaysa maamulka macadka haweenka dhammaan ka soo qaybgalayaasha marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam kadib farxad weyn ay noo tahay maanta dhammaanteen inaan ka soo wada qayb galno xalfadan qiimaha iyo qaayaha leh ee runtii dhammaanteen aan goobjoogayaal u nahay inaan hambalyo iyo boogaadin la garab istaagno ardaydan uwaxa ah ee maanta qalin jabinayso. run ahaantii waxbarashada waxay ka soo bilaabmaysaa marka aad dhalatid markii aad dhalatid oo dhabta hooyadaada aad fadhisid ayay waxbarashadu bilaabmaysaa. waxaa la yiraahdaa waxbarashadu waxay leedahay albaab laga soo galo meel laga soo galo ayay leedahay hase yeeshee meel looga baxa ma lahan. waxaan hambalyo boogaadin u jeedinayaa maamulka iyo macallimiinta macadka saacid oo runtii u dhaba xirtay in ay barbaariyaan soona saaraan jiil caafimaadka ku habboon isla markaasna baahiyaha caafimaad ee magaalada ama deegaanka ka jirta wax weyn ka tari kara. macadka saacid iyo dhammaan maamulka iyo howlwadeennadiisa waxaan leenahay hambalyo. ardayda qalin jabinaysana waxaan leenahay hore u sii socda dadaalka aad bilowdeen wuxuu idinkaga baahan yahay inaad dhammaystirtaan. tallaabtii koowaad ayaad qaadeen waxaa idinku xigo tallaabtii labaad iyo midii saddexaad haddii ilaahay yidhaahdo. waxaana idin rajaynayaa guul iyo gobonnimo. waxaan kaloo idin rajaynayaa inaad halkaas ka sii wadaan dadaalka waxbarashada aad wadaan. waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaan goobjoog ka noqono in arday ay ka qalin jabinayso macadka saacid oo runtii barnaamijka caafimaadka ee wax ka bartay. waana ku faraxsannahay waana bogaadinaynaa. marka aan kelimadeyda ku daro waxaan sidoo kale leenahay macadka sii dadaal oo waxaan kaa rajaynaynaa dufcado kale inay soo baxaan oo aad noo soo saarto oo caafimaadka ayaguna qayb ka ah takhasuskiisa. dufcadan koowaad ama labaad ah waxaan rajaynaynaa in dufcado kale ay ku xigi doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo oo ayagana caafimaadkii iyo daryeelka wax weyn ka tari kara. cilmiga siduu sheegay profesorka Amoy cilmiga la barto caafimaadka waa uu muhiim sababtoo ah waxaan idin tababaray in aad daaweysaan ama aad badbaadisaan qof bukaana ama jira. runtii waxaad tihiin marka dad darawalo ah macnaha ninka oo makaanika ah wuxuu samaynayaa uu furfurayaa baabuurku meeshuu ka ciladaysan yahay ayuu daweynayaa. idinkana waxaa u tihiin makaanikayaal waxaa u tihiin dadka oo waxaa la rabaa inaad daaweysaan oo meelihii uu ka xanuunsan yahay qofkii aad muxuu ahaay haddii daawo ay tahay kaniini hadday tahay sharoobo ama hadday tahay waxyaabo kale oo caafimaadkiis ku saabsan inaad markaas hadduu ilaahay yidhaahdo aad ku dadaashaan. runtii cilmigan aad maanta bilowga idin ah oo aad gaarteen baa idinkuga hambalyaynayaa. hadal badan oo aan sheegayo ma jirto wixii aan sheegi lahaa waa la sheegay. waxaan leeyahay hambalyo ardayda qalin jabinaysa iyo maamulkooda. haadaa wabilaahi tawfiiq.